السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي بحد ميل كستا joogtiin aad baan islaamay waa anigoo ah Cabdi Fataax Gaas. maanta halkan waxaan soo hor istaagay maaha inaan raashin duubayo, maaha in YouTube waxaan duubayo. maanta waxay ku saabsan tahay waxa weeyaan information yar oo ku saabsan afuri walaalka. muddo waxaan wadnay barnaamij ku saabsan walaalka afuri, walaalkan afurka haysan, walaalkaaga aan haysan wuxuu rabadaad ku soomo, walaalkaaga aan haysan wuxuu ku ciido. barnaamijkaasi si fiican buu noogu socdaa. waxaan nahay dhalinyar isku jirta meel kasta oo ay Soomaali joogto, dhalinyar ku midoobay in ay walaalahooga caawiyaan, in ay walaalkooga dhiban ay garab istaagaan, bisha rabadaana ka saaraan waxa ay u awoodaan u diraan raashin hadday noqoto iyo hadday noqoto in dhar ciidiyada aan u dirnaba. halkan waxaan horta uga mahad celinayaa ilaahay baa mahad marka ugu horeysa, ilaahay baa mahad la garansiiyey in maanta aan isku afgarano anagoo dhalinyar ah, anagoo dad aad u da'eera, anagoo isku afgaranay in aan afurino walaalaheen meel kasta caalamka ka joogaan. barnaamijka markaan awadnay wuxuu ku saabsan yahay afuri walaalka. afuri walaalka waa micnaha noocay u leeyahay. afuri walaalka waxaan ugu talagalnay in walaalkaaga aan sooman, aan haysan wax ku afuro, aan haysan wax ku ciido, in aan garab istaagno. wuxuu ilaahay noogu dhibay isku dardarno dhalinyartaas. haddaad 10 euro awoodo, haddaad $5 awoodo, intaan isku darnay aan dad wadankii jooga u samaysanay, aan dhahno khayrkaasaan soo dirsanay, inaguna noo gaarsiiya walaalahayna Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, in aad noo afurisiin, in aad waxaan awoodno intaad u soo iibisiin, aad u geysiin, noogana soo ducaysiin. arrinkayga saa ku saabsan yahay. waxaan soo gudbinayaa shalay waxaan qaabanay tallaabadii ugu horeysay. tallaabadii ugu horeysay ayaa shalay qabanay. tallaabadaas waxay tahay 5 family ayaan shalay afurinay, maasha Allah, oo jooga wadankii. 5 family aan afurinay waxaan ugu talagalnay in ay noqoto tallaabadii ugu horeysay. maanta oo ah sabti ilaa iyo 7 soo socda waxaan rajaynaynaa ilaa 5 bisha inay gaarayso in aan familiyo gaariyo dhowr iyo 10 family in aan afurino meel kasta oo caalamka joogaan, way Soomaaliyeed oo dhiban, walaal Soomaaliyeed oo dhiban, xitaa adiga daawanaya haddaad hayso family dhiban, haddaad og tahay walaal dhiban oo dhib haysato oon awoodin waxyaalaha qaarkood in noloshiisa uu soo iibsado oo ka mid tahay inuu afuro, inuu dhar ciid u samaysto, waad nagu soo xiri kartaa. wixii aan awoodno ayaan ku caawinaynaa. barnaamijkayga waxaan rajaynaynaa in uu noo sii socdo afuri walaalka. barnaamijka afuri walaalka inuu noo sii socdo. horta ilaahay baa mahadle, mar kasta ilaahay baa mahadle, sababtoo ah aniga oo dhalinyar ah, annaga oo dhalinyar aad u da'yara oo isku afgaranay maanta rag iyo dumar in aan afurin karno walaalaheena Soomaaliyeed meel kastay joogaan intii aan awoodno ee awoodayadu ay noqoto. ilaahay baa awood leh. markaan saa kale waxa weeyaan 10 euro, 5 euro, $10, $5 intaas isku darno. maanta waxaa laga yaabaa afar naga mid ah oo min $10 oo $40 in family dhan ay bisha rabadaana ay ka bixiso oo raashin fiican soo iibiso. ma fahanteen? shalay waxaan ku tusaale qaadanay 5 family aan u dirnay raashinkaas aan u dirnay 5 family aan shalay afurinay inaan inta iyo ka badan aan qaban karno. maanta laftigeeda hawl baan wadnaa, berri hawl baan wadnaa. waxaan rabnaa ilaa 15 bisha ilaa inta ciidu ay soo dhowdahay in family kasti oo Soomaaliyeed meel kasti jooga aan afurin karno, waxaan u awoodnana aan u dirno. markaas halkan waxaan uga mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad dhalinyarta aan asxaabta nahay ee walaalaha ku midownay si aan dadkeena u caawin lahayn. halkan video waxaan ina soo dhigayaa aan shalay ay soo duubeen hablo wadankii jooga oo nala shaqaynayay oo iyagu hawsha ugu badan ba sameeyay. annagu kaliya waxaan nahay dadka lacagta diraya ee dadka ugu badan ee hawsha ugu badan qabanaya waxay joogaan waa wadankii weeyaan. iyagaa soo adeegaya, iyagaa soo qoraya, iyagaa mataqaanaa soo eegaya qofka dhiban, iyagaa raashinka qof kasta gurigiisa ugu geynaya oo ka soo ducaysanaya waalidadeena. ma fahanteen? markaa dhalinyar waxaan leeyahay haddii aad ku sugan tahay meeshaad doonay joog, in walaalkaa aad caawiso, in walaalkaaga bilaa afurka aad caawiso. waxaa maaquula adiga noloshaada inay ku dhammaystiran tahay. aanan beenahayn in noloshaada ay dhammaystiran tahay ood haysato waxaad ku afurto, ood haysato mataqaanaaye wax aad cunto, ood haysato wax aad kasti oo noloshaada aysan qof walaalkaaye oo agtaada jooga un haysan. markaa fikirkayga waxa weeyaan kaliya in walaalkaa aad caawiso, waxaad ku awoodo $1 iyo $2 baa noqotay in aad ku caawiso. marka halka waxaan nagu soo gudbinayaa hoosteeda kulli aad ka aragtiin waxa weeyaan waa tallaabadii ugu horeysay ee shalay qaadnay. ilaahay baa mahadle. halkana waxaan uga mahad celinayaa dhalinyarta asxaabta nahay ee WhatsApp group ku jira ee afuri walaalka ku magac baxay.
in ilaahay halkaa inoogu sii wada hawsheenna aan hawsheena ka caajsin aan hawsheena markasta garab istaagno ayna ku koobnaan in afur walaalka ayna noqon oy balaynkeena iyo nolosheena iyo waxaan rajaynayna iyo mustaqbalkeena ilaahay inoo qurux badneeyo oon kusii socono in walaalaheen aan caawino wuxuu ilaahay noogu dhiibay iyo waxaan haysano qayb ka mida aan siino oo iyaguna inala farxaan inala ciidaan inala qurux badnaadaan waxaan awoodno haddii la iscaawiyo la isgarab istaago waxaan aaminsanahay nolosha intaa in ka badan in ala gaari doono halkan waxaad ka arkaysa kale waa hooyo Soomaaliyeed halkan waxaad ka arkaysa waa walaal Soomaaliyeed halkan waxaad ka arkaysa raashinkan usoo ibinay intaan awoodnay aan bixinay marka dhalinyaro meel kastoo aad joogtiin intaa meesha ku midoobay maanta haddaan inii sheego wallahi yani ma soo koobi karo inta qof ay maanta kasoo qayb gashay kaliya waxaan nahay dhalinyar iswada laaleeg isku teenage isku waqti ku jira oo adaafa caalamka meel kasta kala jooga oo maanta cidna cid lahayn oo cid kasta meesha ay ka muuqato hadafkayguna waxa weeyaan kaliya sidee baan u caawin lahayn hooyo Soomaaliyeed sidee baan u caawin lahayn walaal Soomaaliyeed sidee baan u caawin lahayn walaal dhiban qof dhiban oo waxba awoodin meel kasta joogaan caalamka in adigu laftkaaga aad abaabusho inaad dhalinyar isku xidho aad samayso in walaalahooda ay dhiban ay caawiyaan in walaalkooda dhiban ay garab istaagaan aad baan u mahadsantihiin hawsheena halkaa bay ka soconaysaa maanta kaliya waxaan soo gudbinaa waa tallaabadii ugu horreysay waxaana rajaynaynaa intaa iyo in ka badan insha allah inaan soo gudbino assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu